wixii dhacay way dhaceen laakiin waxa hadda soo socda aniga wixii uu dhici lahaa ilaah iyo qoray uu dhicin waa ku qanacsanahay kamana xumi laakiin dhibaatada ugu weyn maanta haysata waxay tahay aniga meeshan familkeyga ma joogaan ninkaas maanta waa la qarinayaa Malaysia jooga because of qof booliiska lagu dacweeyay inuu elboorka bixin karo maleynay sidaas darteed Malaysia jooga aniga waa daneysanayaa bini aadan ahay maanta hoos u deegan kari haddii noqoto inaa baxo waxa ku qof allaalo qofkii maxaa la yiraahdaa maanta Soomaaliya qofkii maxaa la yiraahdaa halkan ku nool Malaysia qaasatan jooga ayaa walaal ku ah ayaa ehel ku ah ayaa tol ku ah aniga ka dhalinyaro ahaan ka YouTuber ahaan runtii aniga adigana boqol aan si fiican baan isku naqaanaa waxaan rajaynayaa inaan kula duubnaano kula duubanahay wax walba oo maanta ku soo wajaho dhibaato walba ku soo wajahdana inaan ka dhidhinayno oo maxaa la yiraahdaa raalib aan marnaba aanan ka ahayn السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكن بمبر بدوني ذاك جبتان إسكسونا قد ونكسن أو ولي في حسله وأنا جو عبد الرحمن محمد إسماعيل جان كان قد ونسن وجاب الجميل أوفيشال هدية نقول سبت هيسود وهدية هنو الجوكتين وتكون ما سنتي على جيكا عادي أتبع كعم هاد علنيا فضل هدية نقول سبت سبسكرايب لايك كومنت شير أنت عادي مهم نقطع وتهاي إن وحن رباه دو إلهي رهدو ما أنت إن كه الله أمام حالي رذاي بصوفرس إن كه الله حيتهاي arrin runtii maalmahan social media meel walba aad tagto ama meel walba aad fiiriso YouTuber hadii ay tahay uu ka soo hadlay Facebooker hadii uu yahay uu ka soo hadlay TikToker xitaa uu ka soo hadlay ayaa raba anna haduu Ilaahay raad inaan ka hadlo runtiina maxaa la yiraahdaa wadankan aan ku noolahay ee Malaysia ku nool oo walibana kamid ah YouTuberada Soomaaliyeed ee halkan jooga runtii ayaan waxaan isnaqaanaa muddo aad iyo aad u dheer ayaan waxaan xasuustaa markii ay imaanaysay wadankan Malaysia waxaan kamid ahaa dadka ku soo dhaweeyay Malaysia maxaa la yiraahdaa maalintii koow ay imaanaysay ama habeenkii ay soo gashay Malaysia runtiina hadii aan ka faaloodo wax yar waa runtii gabar runtii boqol aad iyo aad u qalbi fiican runtiina wallahi maalintii ugu horeysay aan arkay ama la sheekaystayna waxa runtii aan qiyaasi kari lahaa da'da ay jirto age ay tahay iyo walibana maskaxda saaran Ilaahay u daayo ma sha Allah qof waxaana ay aad iyo aad u furfuran bulshadana meel walba ay ka soo gasho runtii maxaa la yiraahdaa la qabsan karta ayaan ku aqaana ayaan tahay ayaan ku ogahay runtiina sida idinkana aad aragteen maxaa la yiraahdaa qaarkiin sida ay u hadlayso ama codkar ay u tahay ma sha Allah waa gabadhaas maanta dhibka qabsaday aad aragteen oo waliba dadka qaarkood dhibkan oo kale markuu qabsado ilaa iyo lawyer xitaa uusan u dhici karin xaqiisa ay iyada maanta afkeeda ku cadgoosatay iyada maanta afkeeda maxaa la yiraahdaa inta soo qofood oo Soomaaliya qulubtooda maanta ay ku degan tahay ay ku degtay oo qof walba Soomaaliya maanta kalgacayl iyo walibana duubni oo maxaa la yiraahdaa uu soo bandhigay runtii maxaa la yiraahdaa wayna mudan tahay qof walba oo dhibana ah in la garab istaago maxaa la yiraahdaa taas waa sharci taas waa maxaa la yiraahdaa waajib walaashay waxaan leeyahay marka koobaad horta wixii kugu dhacay runtii Ilaahay maxaa la yiraahdaa dheef Allah kugu bedelo runtii dhibaatada maanta kugu dhacday waxay dad badan u tahay maxaa la yiraahdaa cashar dad badanna waxay u tahay fariin adigana waxay ku noqotay maxaa la yiraahdaa fariin oo walibana cashar ay ku noqotay insha Allah ta'ala qof walba oo ayaan maxaa la yiraahdaa arrinteeda daawaday ama wax ka ogaaday waad aragtay runtii sida waxay u noqdeen ama sida wax soo gaareen runtii qof walba YouTuber ay arintan ka hadlay qof walba YouTuber ay arintan falanqeeyay qof walba oo maxaa la yiraahdaa social media ku jira oo caanka ah magac ku leh arintan uu ka soo qaatay wax uu ka hadlay aniga haduu Ilaahay raado waxaan rabaa inaan ka hadlo oo waxaan ka soo qaato ayaan maxaa la yiraahdaa arinta ku dhacday qof maanta bini aadan ah oo ku farxayo horta ma jiro qof walba oo maxaa la yiraahdaa YouTuber ha ahaado qof caadi ha ahaado qof walba in arinta ayaan ku dhacday boqol waxay tahay qof maxaa la yiraahdaa murugo ay ku reebtay ama damqasho ay ku reebtay ama ka argagaxay markii uu maqlay ayaan saad wada ogtihiin waa gabadhaas aad aragteen oo iyada waliba afkeedii kaga sheegtay
oo maanta cidna aan meeshan u joogin maxaa la yiraahdaa walaal iyo ehel kale iyo qaraabo kale aan ku haysanin laakiin waxay heshay ee qulubtooda degtay ee hanatay saa hore kugu sheegay dadyow kale oo aanan maanta aysan garanaynin maalintii ay kasoo ambabixaysay dalkaasi Soomaaliya halkan ay imaanaysayna ay maxaa la yiraahdaa aynan kusoo tashanaynin in maxaa la yiraahdaa dadkani baran doonto ama heli doonto laakiin waxay ku hanatay ee qalbigaas ay ku degtay wanaag iyada laga arkay iyo welibana social nimada iyada ay leedahay u dhalatay Ilaahay u dhaliyay iyo welibana hibada Ilaahay siiyay oo aftahanimo ay intaasi maxaa la ku kasbatay maantana maxaa la yiraahdaa haddii ay noqotay qof dhibana ah victim ah waxay mudan tahay in garab istaago in maxaa la yiraahdaa la dhinac istaago sida ayaan ay ka dhawaajisay dad waxaa jira dadyo badan oo arinteeda isku dayay inay duufsiyaan ama inta ay xaq u lahayd isku dayay in maxaa la yiraahdaa ay ka baabi'iyaan waliba ayaga u fiirinayo dhinac qabiil iyo qabyaalad xageeda u weecinayo horta waxaa laga xaqiiqa ah ayaan iyo qofka dhibka u geystay in maxaa la yiraahdaa dad ehel ay isku yihiin oo dad yacni qaraaba in ay yihiin haddana waxaa mar meesha ka jirta waxay tahay qofka mar haddii uu yahay qof dhib ku geystay ama ku cunaya adiga oo bahal kugu ah wuxuu ku galo malahan qaraaba sheegtaa haddii uu walaalka kula dhashay uu yahay xitaa mar haddii uu isku dayo qofkaasi in dhiigaaga uu cabo ama dhibaato uu adiga ugu talagalo inuu ku geysto maalinkaas ayuu ka baxayaa xuduudda ama xadka ah in qofkaasi maxaa lagu xeeriyo walaal iyo ehel ama qaraabo lagu soo xeeriyo dadka ay maxaa la yiraahdaa ayaan ka cabanayso ay leedahay waxay isku dayayaan xaqeega in ay duufsiyaan oo Malaysia ay ku nool yihiin mid baan ka leeyahay ayaantaas dadka Malaysia ka maqan aanan xog aanan u haynin mid baan rabaa inaan ka ogeysiiyo xaqiiqda horta waxaan ku noolnahay waa wadan horumaray waxaan ku noolnahay waa wadan sharci leh waxaan ku noolnahay waa wadan nidaam iyo kala dambeyn leh qof walba oo halkan jooga wuxuu doona ha ahaado waxa xaqiiq ah in xaqiisa aan la dufsin karin meeshaan qabiil kama taliyo meeshaan maxaa la yiraahdaa qolo gooniyo iska leh ma jirto qolo kale looga maxaa la yiraahdaa awood sheeganayo oo meeshaan ku nool ma jirto wadankan waxaa la yiraahdaa Malaysia dawladda iska leh waxaa la yiraahdaa Malaysia cid kale oo maanta yacni maamulkaas qaban karta ama ka arimin karta ma jirto haddii ay dhacdana in lagu handado ay haddii ay dhacdo in lagu dhibaateeyo qof allaalo qofka isku day handadaad hadaas lagu geysanayo haddii aad evidence ka haysatid ama caddeyn aad ka haysatid waxa xaqiiq ah si toos ah qofkaas inaad xabsi u geyn kartid adiga awood buuxdan aad u leedahay sababtana wax kale ma aha sharciga mar walba wuu sareeyaa wax walbana wuu ka sareeyaa haddii isku dayayaan in ay noqoto in maxaa la yiraahdaa adiga ay ku ataagaan qaab qabiiliyan ah ama ay ku ataagaan ama ay ku soo ataagaan si personally ah intaba waxaad awood u leedahay waxay tahay in aad sharciga geyn karto oo aad dacwoon karto oo maxaa la yiraahdaa dacwadaadana waliba la aqbalayo sababtaas waxay tahayna adiga waxaad tahay qof victim ah qof dhibana ayaa tahay oo dhib loo geystay qofka dhibanaha ahna sharciga mar walba garab ayuu siiyaa waa uu la jiraa mideeda kale arinta ah dacwada aad ku soo oogtay wiilka xaqiiqdii waxaan u maleynayaa arintaasi dacwadeeda inaadan xoog badan aadan saarin ayaan haddii caqabado gaara ay qabsatay ay jirto waa laga yaabaa oo arintaasi ka gaabisay laakiin aniga waxaan hubaa qof Malaysia ku nool oo welibana dumar ah oo welibana dhib loo geystay xaqiiqdii in Malaysia dawladda Malaysia aad iyo aad ay ugu gacan fududahay arintaas sahalna ay u tahay inay weliba qofkaas talaabo sharci ka qaado halkan aan joogno gabdhaha xuquuq aan inaba caadi ahayn ay ku leeyihiin 100% halkan iska badaa qof ajaanib oo shisheeye ah wallahi kuwa u dhashay wadankan waxay ka baqaan 100% in ay gabdhahooda ay dhibaato u geystaan in ay gabdhahooda dhibaato u geystaan ay dacweeyaan ayay 100% ka baqaan ayagoo wadanka u dhashay oo local ah maxaad filaysaa adiga Afrika ka yimid oo waliba wadanka aad joogtidna ku ah maxaa la qaxooti ku ah midda qaxootiga iyadana haddii aan wax ka iraahdo meeshan sidaan wada ognahay Soomaalida badanaa joogto waxay u joogaan 3 siyaabood taasoo ah qaxootinimo waxbarasho iyo maxaa la yiraahdaa caafimaad markii la iskala imaado waxbarashada iyo caafimaadka
inta kale ee Soomaalida halkan joogto oo aad aragtaan waxay u joogaan waxay tahay waa arrimo qaxooti dhammaan waxaa lagu wada jira oo la wada sugaya waxay tahay UNHCR UNHCR naftirkeeda ayaa waxay noqon kartaa dawlad gaar ah sababtoo ah waxay leedahay qolooyin loo gudbisto caawishooyinka noocan oo kale ah leedahay dad guddi u xilsaaran waxay leedahay guddi u xilsaaran ama ku howlan arrimahan maxaa la yiraahdaa dacwadda ah welibana waxaa jirto haddii aadan hore u ogeyn oo hore aadan u aqoonin community ka madax bannaan community Soomaalida guud ahaan u leedahay dalkan community ka madax bannaan oo community-gaasna wuxuu qaabilaa gabdhaha kaliya waxaana maxaa la yiraahdaa wada maamulo oo maxaa la yiraahdaa ka wada shaqeeyo waa gabdho kaliya community-gaas runtii maxaa la yiraahdaa arrimahan oo kale 100% ay wax uga qabtaan sida ugu dhaqsiyaha badan maxaa la yiraahdaa jawaab waa lagu soo siiyaa welibana waxay hoos tagaan ay ka wada midaysan yihiin waxay tahay UNHCR taasi marka macnaheedu waxay tahay halkan gabdhaha power aad iyo aad runtii u weyn ay ku leeyihiin wadankan aan joogno ee Malaysia runtii qof walba oo maxaa la yiraahdaa qof kale ku xadgudbana xaqiisa waa laga soo dhicinayaa ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo hadalkayga waxaan rabaa inaan iraahdo laba midba adiga ka suurtooda oo xaq u leh oo doorasho u leh mid oo ah in maxaa la yiraahdaa dacwadaada aad hore u wadatid oo xoog aad saartid qof alaalo qofkii isku daya in maxaa la yiraahdaa uu ku cagajugleeyo oo ama uu isku dayo in dacwadaasi aad u ka joojiyana aan runtii aad sharci la tigsan kartid middaas waaye midda kalena doorashada aad leedahay waxay tahay inaad xafis aad maxaa la yiraahdaa fidiso oo qofkii maxaa la yiraahdaa iska xafiso maadaama maanta aad adigu nooshahay oo aad caafimaad qabto oo aad hadlayso oo dhibka maanta lagu geystay uusan ahayn dhib maanta adiga meel يعني كابتري أما قف محالي هذاي لحد كيسي واحد أولي ما يآذن هين والحمد لله لحد كاي أتقبتي إن أدمنت إن هدن أتقف كاسي عفز أسين كرتو العفزين كرتو إن إلهي سبحانه وتعالى وحيد هددكو عليهم كحسوسيو وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا فأجره على الله قفك بني آذن كأه هدي ودباتكو جيستو دبكو جيستي دب لمده محالي هذاي إن أجيسن كرتين أصلا أو محالي هذاي لكن أنا هين wixii ku geystay wax ka baxsan aan ahayn oo yaani wixii dibkaas dib lamida inaad u geysan kartid laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu aayadaas dhamaadkeeda ka raaciyay ama aakhirkeeda aayada waxa ku soo gabagabeysaa hadii aad cafiso in maxaa la yiraahdaa ajir ilaahay xaqiisa aad ka helaysid diintan islaamkaana waa diin aad iyo aad runtii u macaan qof walbana waxay faraysaa mar walbana ay ku soo celinaysaa aayadahaas iyo aayado kale badan ee ku soo arooray waxay tahay cafiska عفسكنا وح مهمة ووح عاقرة ويقدون بمحالي هذا الليبان تداري ليسيد تاسنا قوان كده عادية اسكالة انت سايان محالي هذا كلية ولا شيء مدي هذا كلام حنكو شيء قف الله قف كي محالي هذا ما انت صوماليا قف كي محالي هذا ان حال كان كونوا الميليشي خاصة جوبا ايا ولا القوة ايا اهل القوة ايا طول القوة aniga ka dhalinyaro ahaan ka youtuber ahaan runtii ani adigana 100% aad si fiican baan isku naqaanaa waxaan rajaynayaa inaan kula duubnaano kula duubanahay wax walba oo maanta ku soo wajaho dhibaato walba ku soo wajahdana inaan ka dhidhinayno oo maxaa la yiraahdaa raalib aan marnaba aanan ka ahayn inta qofooday maanta ka caawisay arintan oo ay ugu horeyso Tina Fare aad iyo aad baan u bogaadinayaa aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa qof walba oo qayb ka qaatay gabadhaas horumarkeeda qof walba oo qayb ka qaatay gabadhaas xuquuqdeeda qof walba oo qayb ka qaatay gabadhaas maxaa la yiraahdaa kalsooni soo celinteeda 100% waxaan leeyahay aad iyo aad baad u nasantihiin haddii aad youtuber tahay iyo haddii aad tahay maxaa la yiraahdaa qof shakhsi caadi ah Soomaaliyeynta aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa ayagana ku taageeray 100% una damqaday qaarkoodna maxaa la yiraahdaa fariimaha ugu soo qorayay commentiska aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waxaan leeyahay Soomaali meel walba ay joogto isku toosnaada isku tiirsanaada 100% waxaan leeyahay mar walba waxa sareynaya waxay tahay cadaaladda iyo sharciga mana jirto qof la doodsiin karo xaqiisa insha Allah ta'ala ayaana waxaan rajaynayaa 100% sida ugu dhaqsiyaha badan si Allah sida iyada ay jeceshahay iyo si Allah sida iyada niyadeeda ka soo goodo inay wax u heli doonto insha Allah waxaan leeyahay video caynka la midinta aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa
sida iyo nabadiino. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.